Aabbuhu waa ninka ugu taajirsan dunida. Wuxuu xirtaa dharkaas loogu tolay. Wuxuuna wataa gaari raaxo ah oo qiimihiisu yahay malaayiin. Laakiin wiilkiisu wuxuu ka shaqeeyaa goob dhismo. Isagoo qaadaya sibidh qoraxda 50 darajo ah. Ma aha in aabbaha taajirka ahi uusan daryeelin wiilkiisa. Laakiin waxay is arag waayeen muddo 20 sano ah. Maalin maalmaha ka mid ah, kaaliyihiisu waxay u sheegtay in la helay halkuu wiilkiisu joogo. Waxayna ogaadeen inuu ka shaqaynayo warshad ka tirsan shirkadda aabbihiis. Markuu maqlay ninka taajirsan wuxuu rabay inuu isla markiiba u tago. Laakiin kaaliyuhu way joojisay. Maxaa yeelay waxay ogaatay inuu wiilku leeyahay deymo. Waxayna ka baqday inuu yahay qof dabeecad xun. Si kastaba ha ahaatee, ninka taajirka ahi marnaba kama quusanayo helitaanka wiilkiisa. Wuxuu go'aansaday inuu tijaabiyo dabeecaddiisa. Wuxuuna isku ekaysiiyey shaqaale beeraha ka shaqeeya. Wuxuuna u tegay goobta dhismaha. Wuxuu taagay sawirkiisa. Wuxuuna si taxaddar leh ugu barbardhigay wiilka hortiisa jooga. Markuu arkay calaamad dhalasho oo qoortiisa ku taal, wuxuu isla markiiba ogaaday inuu wiilkiisa yahay. Markuu xaqiijiyey, wiilku wuxuu aabbihiis guriga u kaxeeyey. Halkaasna wuxuu ugu arkay gabadhiisa yar, awowgii u ahaa. Ninku aad buu u qiirooday. Wuxuu weydiiyey, xaaskaada xaggee ayay ku dambaysay? Wiilku wuxuu u sheegay in xaaskiisu ka tagtay, maadaama gabadhoodu lahayd cudur wadne oo ay ku dhalatay. Aabbuhu markuu arkay sida uu wiilkiisu ugu dhibtooday, wuxuu rabay inuu u sheego in uu yahay ninka ugu taajirsan. Laakiin wiilkiisu ayaa hadalka ka jaray. Berri waxaan ku heli doonaa shaqo fudud si qoyska u mideeyo. Maalintii xigtay, wiilku wuxuu aabbihii u waday goobta dhismaha. Wuxuu rabay in kormeeraha laga helo shaqo sahlan. Markuu arkay kormeeruhu inuu ka labalabaynayo, wiilku wuxuu bixiyey kabis uu sii diyaariyey. Gudahana waxaa ku jiray lacag badan. Kormeeraha isla markiiba wuu aqbalay. Markaas ayuu aabbuhu ogaaday in shaqadan fudud la iibsado. Kormeeraha oo maqlayay wuu ku qayliyey. Wiilku wuu cudur daaray. Kormeerahana wuxuu dalbaday 2 kabis oo kale. Lacag wiilku uusan haysan. Wiilku wuxuu ballan qaaday inuu siin doono marka mushaharka la bixiyo. Kormeeruhu wuxuu amray in wiilka iyo aabbihiis loo diro si ay u soo dhaweeyaan madaxweynaha shirkadda, oo markaas mushaharka loo sii dayn doono. Markay tageen, aabbuhu wuu argagaxay. Markuu arkay shaqaalihii oo dhan joojiya shaqadii si ay hal nin u salaamaan. Intay taagan yihiin, wiilku wuxuu arkay xaaskiisii hore. Wuxuu u orday inuu salaamo. Laakiin waxay tiri inuu qof kale ula qaldamay. Wuxuuna u sheegay inuu xushmad yeesho. Wiilku wuu istaajiyey oo weydiiyey sababta ay isaga iyo gabadhooda u dayacday. Laakiin haweenaydu way diiday inay mar uun xaaskiisa ahayd. Waxaana tiri marnaba lama xiriiri doonto nin dhismaha ka shaqeeya oo wasakh ah. Wiilku wuxuu soo bandhigay faylka caafimaadka gabadhooda. Laakiin waxay tiri inuusan qusayn. Markay murmayeen, madaxweynaha ayaa yimid. Si aysan u fashilmin, haweenaydu waxay ku sheegtay in wiilku mushaharkiisa dalbanayo. Wiilku wuxuu codsaday mushaharkii 6 bilood ee laga haystay si gabadhiisa loogu sameeyo qaliin. Madaxweynuhu wuu carooday. Wuxuuna kormeeraha ku amray in wiilka cashar loo dhigo. Aabbuhu wuu farageliyey. Wuxuuna wacay kaaliyihiisii si ay u yimaadaan kormeer degdeg ah. Wuxuu yidhi, golaha ganacsiga wuxuu mamnuucayaa mushaharka la haysto. Ma ka baqaysaan ciqaab? Markaasay cabsi galeen. Madaxweynuhu wuxuu sheegay in mushaharka la hayay sababtoo ah mishiinku xumaaday. Qofkii hagaayana isla markiiba la siin doono mushaharka. Laakiin qof kasta wuu ogaa in hawshu tahay halis ay dad badani ku dhinteen. Madaxweynuhu iska rabin inuu bixiyo mushaharka. Wiilku isagoo gabadhiisa u fikiraya, wuu istaagay oo aqbalay shaqada. Markuu dalbaday qalab badbaado, waxaa loo sheegay inuusan jirin. Qalabka oo dhan wuxuu ku kacayaa 100,000. Noloshiisana qiyaas badan ma laha. Aabbuhu wuu diiday. Laakiin wiilku wuxuu u dhacay ceelka si uu gabadhiisa u badbaadiyo. Kormeeraha xadhiga ayuu si ula kac ah u sii daayay. Walaal madaxweynahuna wuxuu is yidhi wuu dhimanayaa. Laakiin daqiiqad kadib, wiilku ceelka ayuu ka baxay. Wuxuuna hawsha ku dhammaystiray si guul ah. Markuu mushaharka dalbaday, si adag ayaa loo feeray. Madaxweynuhu wuxuu mooday in haweenaydu u guursatay si ay lacag ugu daawayso gabadhooda. Wuxuuna dareemay in la khiyaamay. Wuxuu amray in wiilka la garaaco. Laakiin kaaliyaha ninka taajirka ah ayaa soo gaadhay waqtigii saxda ahaa. Waxay qabatay madaxweynaha iyo nimankiisa, oo waxay u gudbisay golaha ganacsiga. Waxay sidoo kale bixisay dhammaan qarashka caafimaadka gabadha, iyadoo raacaysa talada aabbaha taajirka ah. Wiilku weli ma ogaanayo in ninka uu la socdo uu yahay aabbihiis. Markay guriga ku noqdeen, wuu u cudur daaratay xaaskiisa. Wuxuuna islahaa qoyska waa isu noqon doonaan. Laakiin si lama filaan ah, xaaskii waxay soo bixisay heshiis oo wiilka si buuxda u shoc gareeyey.